siyaasadda bariga dhexe ee la rabo waa maxay siyaasatu tatbiic waxaanay jaraa'idku iminka inoo qoraan ee la beddelayo wejigay yeelanaysaa inaynan inagu waxba ku darsan baa la qaatay aan kelmad idhaahda iyagu ay yidhaahdeen Allen Austin waa la taliyihii siyaasiga ahaa ee Ronald Reagan ayaa wuxuu ku yimi Kuwait ayuu ziyaara ku yimi dabeetana muxaadara buu ka hadlay muxaadaradii markuu jeediyey baa su'aal la weydiiyey waa Kuwait buu dhex joogaa dabeetana lecture buu jeediyey lecturekiisa kadib baa su'aal la weydiiyey xawla almustaqbal السياسي لدول الخليج baa la yidhi ka war mustaqbalka siyaasiga ee duwalka khaliijku siduu u ekaanaya weedhiisii intuu hadlay buu wuxuu yidhi Israa'iil buu yidhi waxay noqon doontaa cudwi ama xubin ka mid ah majlisu tacaawun alkhaliij alcarabi buu yidhi hadda ma aha majlis alcarabiga iyo waxaa waa Israa'iil waa nin Maraykan ma aha nin Maraykan oo caadiya waa mustashaar kii arrimaha siyaasiga madaxweynihii dhammaayee hore tegay xaguu ka hadlaya ma aha Maraykan iyo meelahaasi fi daakhili Kuwait buu muxaadara ka jeedinaya dadkiisii muxaadarada dhagaysanayay ee mustamiiciintii akaarimta haba su'aal markay weydiiyeen ka waran mustaqbalka khaliij alcarabi ayuu wuxuu leeyahay Israa'iil waxay cudwi ka noqon doontaa majlis at-tacaawun liduwal alkhaliij alcarabi dabeetana buu yidhi majlisu tacaawun duwan alkhaliij wuxuu Israa'iil korkeeda saari doonaa حماية أراضيها من التهديدات العسكرية لدول المجاورة بويد إسرائيل بويد إنay u ilaaliso dhulka دول الخليج ciidan ahaan oo ay ka ilaaliso kuwan jaarkeeda ku soo warwareegaya هذا هي سياسة نظام عالمي جديد wuxuu raadinaya waa ka waxa idin kaga filan nidaam caalami jadiid wuxuu raadinayo naa'ib الرئيس الأمريكي markii mu'tamarkii Madrid la furayay ayuu hadlay wuxuu la hadlayaa carabtii meesha isugu timi kalimatul iftitaax buu leeyahay carabta waxa la rabaa inay la heshiiyaan Israa'iil kalimatul iftitaax ra'iiska ama madaxweyne ku xigeenkii Maraykanku ku furay ma taqaana bimil ifami buu intuu hadlay buu wuxuu yidhi nimankiinan carbeed dhammaantiin mahzuumiin baa tiin buu yidhi yani waa inay isdhiibi dhammaantiin waa jabteen buu leeyahay waa kelmaddii mufaawadaadku ku bilaabmayay ee uu jeedinayo maxay نائب الرئيس الأمريكي waxaynu leenahay bahalka cusub ee la sheegayo nidaam العالم الجديد ama مثلا شرق الأوسط ka cusub iyo sidoo ekaanayo mufaawadaad baa lala galay Palestine iyo waa kana caynkaas la yiri mufaawadaadkii xagga lagu la galay Israa'iil waxay bilowday Qudus القسم الشرقي inay mustacmaraad jadiida ka dhisto waan markii hore dee wax baciid ka ahaa شاب مفاوضات كي waxa kale lagu galay markaasay United Nations yara qaqaato la yiri way yara hadleen muddo 5 sanadood isagoo aan baarqabka dunida ku doobiyaan oo erayga veto ah isticmaalin ayuu ku isticmaalay veto in arrintan laga hadlo gabigeedba 5 sanadood ka hor vetodii hore Maraykankuna nafs القضيه bay ku saabsanayd qadiyada Israa'iil bay ku saabsanayd nidaam العالم الجديد iyo sida uu dhigayo waxa idin kaga filan wasiiru khaarijiyatu Israa'iil ba khudbad jeediyay bal hadda u fiirsada waxa waraysatay jariidad yuhuud ay leedahay ayada jariidadooda la yiraahdo markaas wuxuu ka yaabay wasiiru khaarijiyi wuxuu ka yaabay shooqan iyo maxabadan carabti qaaday iyo sida loogu soo kala dheeraynayo uu ka argagaxay dabeetana intuu hadlay buu Paris ba wuxuu leeyahay أخاف إذا ما استمر الحال على هذه الوتيرة الصريعة أن يطالبون بالانضمام إلى الجامعة العربية بيوري من مخاوفه بيكمت لمن كان عربي بيوري حبك كان قاضي سيدان دقدقتا هدو الصعدة بيوري وحن كبق يا بيوري إن إمكان نقض البضان إن الجامعة العربية كبيرة إسرائيل بقى عبسانيسا إن لا يرادو هوية دي يهود إني ماذا أطوره تيسكا سوقالا الجامعة العربية بقاها مركو وزير الخارجية قبه أي الجامعة العربية كيها استناهض ليا عصمت عبد المجيد وحلي انت حفلتي كنت نادي اللي دي قوايي يا إلى هيد الجامعة العربية
ayuu kii haystay markaa dawaqsanya wuxuu leeyay waxaan aada hal yacqal miyay wax maanka gasho tahay buu leeyay inay meeshan jirta buu yidhi musaalaxa ama heshiis carabiya israa'iil dhex mara oo jaamaca alcarabiya ay qaban kari weyda buu yidhi musaalaxa carabiya isna taasuu ka yaaban yahy ninkan odaygiina wuxuu ka yaaban yahay in yuhuudda lagu daro in carabta lagu daro waxaan leenahay laakiin nidaam alcaalam aljadiid waa maxay malaamixda ka muuqata ama simaadka ama calaamadaha lagu garanaya waa maxay waa nidaam imberyaaliya baynu leenahay ama waa qaab isticmaar oo cusub oo soo socda oo ka gadisan qaab isticmaarkii hore dunida aadka u soo maray laakiin waa maxay simaadka ama muuqaalada uu leeyahy waa simaad runtii aada u cajiiba waxaan leenahay awalan qaybta dhaqaale ee nidaam alcaalam aljadiid wuxuu u yaallaa kama gadisna qaabkii hore u yaallay dunida caalamka saddexaad ay u yaqaaniin ee inta badan ay ka tirsan yahay caalamulislaami dhammaantiin gaajo iyo faqri iyo dhaqaale xumo iyo waxbuu ka cabanayay laakiin markii hore waxaa maskaxdooda ka guuxaysay in isbedello la samayn karo khaasatan duwallo waaweyn oo cimlaaqo oo ku jira sida brazil iyo indiya iyo nigeria iyo venezuela iyo masr iyo sacuudiyada iyo runtii sarwaat waaweyn leh waxay moodayeen mustaqbalka inuu wax isbedeli karaan laakiin waxay dhahdaan fi caalam aliqtisaadi aljadiid afkaartaasi talaashat ama tamaaman way baabaaday iyadoo uu maraya bay dhahaan cib'iga dhaqaale ee saarani 1,300,000 ama 1,300 oo milyaar ama 1,300 oo bilyan oo dollar uu marayo culayska saarani bay leeyihin laakiin nidaamka cusub wuxuu isku dayayaa inuu sii cusleeyo qadiyadatan oo ah in caalamka saddexaad uu qasab ugu ogolaado caalamka horu maray munaafasa inay la galaan xor ah aswaaqdooda iyadoo aanay laba isu dheeli tiran aanay hayn la rabo inay qasab munaafasadaasi caalamka saddexaad uu ku galo oo natiijaduna ay tahay dee wax la iska garanayo ilaa xad wadannada qaarkood ay gaadhsiisay kuwii maamulayay inay waddankii iyo dadkii iyo wixiiba iibiyaan markii bu'sigii iyo faqrigu sii tiro batay xataa kuwoodii dhaqaalaha lagu tilmaamayay sacuudiyada iyo meelahay sii marayaan waa wada muuqanaysaa waxaan leenahay duwalka reer galbeed duwalka faqiirkaa waxay dakhligooda ka siin jireen 0.35% boqolkiiba in ka yar boqolkiiba nus in ka yar yacni boqolkiiba xabad badhkeed in ka yar dakhliga waddanku uu leeyahay qoomiga waxay ka bixin jireen 0.35% bay yidhaahdeen waa qiimo gaadhaya bay yidhaahdeen ilaa 47 iyo badh ilaa 47.6 bilyan dollar buu gaadhayaa bay yidhahdeen laakiin waxaa duwalka caalamka saddexaad dib looga soo qaadi jiray intaa marka loo dhiibo badiilka laga heli jiray wuxuu gaadhi jiray bay yidhahdeen 178 bilyan oo dollar intana quruuda ama waxabaa loo dhiibaa inta dib looga qaataa waxay ahayd bay yidhaahdaan ilaa 178 bilyan oo dollar sanad kasta imika bay yidhaahdeen intii laga soo celinayay bay yidhahdeen sibay uga soo noqonaysa laakiin intii caalamu haaliska la siin jiray bay yidhahdeen waa in hoos loo dhigaa waayo dunidu markii hore waxay u qaybsanayd bay yidhaahdeen bari iyo galbeed markii dagaalka qaboobi socday imika bay yidhaahdeen istaraatiijiyada caalamiga waa in la bedelayo loo qaybiyaa waqooyi iyo koonfur marka waqooyi la leeyahay waa in lagu daraa markaa galbeedkii la yaqaanay duwalkii waaweynaaye reer bari ee shuuciyadda ka takhallusay waa in lagu soo daraa dhanka reer galbeedka musaacadaadkay reer galbeedku bixin jireena waxoogaagii gaadhi jiray caalamka saddexaad bay leeyihin waa in loo gudbiyaa maxay bariga kan lasoo kobcinayo maalan suuqa reer yurub ee ECD wixii la midi sanad kasta waxay u qadimaan $60 qof kasta oo Boolandiya iyo Chica Majar iyo Poland qof kasta oo u dhasha waxay $60 lacag gaadhaysa iyadoo waliba bay leeyihiin caalamka kan kuwa dhaqaalahooda hadda soo kabcaya duwalkaas iyagoo ka mida baynaba ay yidhaahdeen
afrika waxay geeyaan oo dhami uu yahay 10 kuwa kan 60 ayuu gaadhaya afrika waxay siiyaan oo dhamina 10 buu gaadhaya waliba bay leeyihiin mustaqbalka soo socda qaabka loola dhaqmayo caalamka thaalithku qaabkii hore uu ka sii xumaanaya waxa loo qarinayaana way ka sii xoog badanaysaa caalamka thaalithkuna faqriga waa lagu sii adkaynaya haddii cid kor loo soo qaadayo musaacadaadka galbeed gaadhayaana caalamka bariya walaaladooda bay gaadhsiinayaan sida daraaddeed dunida qismada cusub ee dhaqaale waxaa loo dhigayaa inay noqoto waqooyi iyo koonfur qaybta social life-ka ama thaqaafada ku saabsan ama waxaasi macnaheedu waxa weeyaan qiyamka iyo afkaarta ay rumaysan yihiin reer galbeedku waa in laga dhigaa qiyam iyo afkaar caalamiya oo waa maxay waagii hore reer galbeedku way dhoofin jireen afkaartooda laakiin waxay u dhoofin jireen dariiq ah sunta iyo malabka la isku daray oo ah dariiqa iskuullada iyo waxbarashada iyo thaqaafaadka iyo dhankaasi bay ka dhoofin jireen laakiin iminka waa la bedelay bay leeyihin waxaa loo bedelay dariiq odhanaya hay-a al-umam almutaxida iyo qaraaraadka ka soo baxaya waa in lagu qasbaa caalamka saddexaad awal tawsiyaad buu ahaan jiray mu'tamaraadka mu'tamar sukaan iyo mu'tamar tanmiya iyo mu'tamar xuquuq al-insaan iyo mu'tamaraadka noocaasi caalamka hore way uga dhici jireen imka waa kuwii dhacay mu'tamar xuquuq al-insaankii u dambeeyey Vienna lagu qabtay mu'tamar tanmiya wa sukaan qaahira lagu qabtay mu'tamar tanmiya wa sukaan مثلا waxa laga waramayay liwaadka waa tanmiya sukaan ku tirsan liwaadka laga waramayay waxaas laga waramaya bal 300 oo qoomuluud ka tirsan baa la socday si ay mudaahara uga sameeyaan qaahira gudaheeda oo marka mu'tamarku ka tirsan tanmiyada iyo sukaanka ay leeyihiin qaraaraadka ka soo baxa lama rabo inay imka tawsiyaad noqdaan ee waxa la leeyahay marka hore waa qaraaraad dimuqraadiyada oo adeegaya si daraaddeed duwalka caalamka thaalith waa inay qaataan hadday qaadan waayaan waa in loo hanjabaa cunaqabatayntii dhaqaalaha bilaabmaysa cunaqabatayntii siyaasiga ahayd baa bilaabmaysa waxa kan mararka qaarkoodna xooggaa lagu dayaya waayo berigii hore caalamka thaalithku laba meelood oo yaro dhex xaraararaabuu haystay marna xagga shuuciyada loo yaro ordi jiray marna xagga kale waxbaa la dhex xaraarari jiray ama quwa mutacaadila xagga xooggaba ka jirto dunida isu yara dheeli tiraysa imka meel loo kala cararaya ma jirto bay leeyihin sida daraaddeed raqma al-anf ima daqdi siyaasi ama daqdi iqtisaadi haddii loo baahdana bay yidhahdeen daqdi caskari waa in lagu fuliyaa idan wuu isbedelay waxay leeyihiin caalamku tiknolojiya cusub buu galayo waagii hore tacliimkiiya waxaasay ahayde albath almubaashir waa inuu caalami noqdaa bay yidhahdeen iminka oo waa maxay qiyamka iyo afkaarta reer galbeedku haystaan can ariiqi daraasiya waxa waa inuu ka gaadhine bath mubaashira waa in lagu sameeyaa CNN kan iyo NBC gan iyo waxaan la sheegayaa waa dhaqankeenu dunida waa inuu toos u galaa raqma anfihim waa taqaanin dee Soomaaliya imka sida CNN ka looga daawadayo NBC yada iyo waxa kan oo ah dhaqankii reer galbeed oo la rabaa raqma anfikum in la idin geliyo oo qaabkan loo dhigo waxaan leenahay maanta haddii la rabo dhaqanka dunida in wax laga gadiyo maalan waxay yidhaahdaan 14 milyan oo qof baa sanad kasta gaajo u dhinta bay yidhahdeen xasba taqriirihim 70% bay yidhaahdaan waa atfaal waa arqaamtay soo saartay al-umam almutaxida faqrigaasi bay yidhahdeen wayna dhib gelinaya maxaa xal ah reer galbeedku muxuu xal u hayaa waayo waxay leeyihiin haddii faqrigu kusii bataa caalamka thaalithka tamarudkaa badanaya fawdadaa badanaysa dee bay yidhaahdeen qasriga boqorka haddii dadka ku agnoole hadiyo goor ay aada u gaajoodaan marun baa laysla soo jiiri doonaaye maxaa xala see looga ilaalinaya qasriga boqortooyada dadkaa gaajaysani inay soo galaan waayo cadad sukaan 40 dowladood bay yidhaahdaan oo caalamka thaalith suuqa alurubiya oo dhan sukaankoodu waa 300 milyan oo nismo 40 dowladood caalamka thaalithka yararaba iskaga badan bay yidhaahdaan oo kuwa fuqarada ah see loo gelayaa bay leeyihiin dadka kan xal kale markay u waayeen waa kuwan is haysta xalalka dadka baday hayaan waxa muuqata caalamku bay leeyihiin idraab iyo fawda inay ka soo socoto waxa muuqata bay dhahay maalan Afrika bataalada ama shaqalaantu 50% inay ka badantay iyadoo 50% ka badan bay leeyihiin waxa muuqata haddana
70,000 oo jaamici oo afrikaana inay haystaan caalamka horu maray waxay leeyihiin waxay iyagu investment ku sameeyeenna inagaa soo qaadanay mutacalimiintooda iyo dadkooda ay waxbareenna inagaa soo qaadanay iyagana faqriga iyo wixii baa looga yimid maxaa la yeelayaa bay leeyihin waa masaladay maanta leeyihiin waa in la bedelaa bay leeyihiin nato iyo xilf atlas shaqadu qaban jiray awal wuxuu ahaa waarsuu ilaalinaya kan buu ilaalinaya kii hadduu baaba-imka muxuu ilaalinaya waxay leeyihiin ixtiraamu silaaxina waxaynu baraynaa caalam thaalitku nato waa inay u dhisnaataa inay ilaaliso yurub